noloshu muuqaalka maaha sidaad u eg tahay maaha inaad madowday inaad cad tahay inaad fool xuntahay inaad fool xumayn ma aha qiimuhu maaha abtirsiinta iyo reerkaad ka dhalatay iyo siday magac u lahaayeen reer hebelamaan oo laandheera oo qoladaa ka dhashay tiro badan oo fara badan ayaanu nahay ilaahay agtiisa waxba kama aha kan foosha xun iyo kan quruxda badan waxa loo dhameeyo sanadii ilaahay in allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ilaahay muuqaalkiina ma eegayo maalkiina toona taasi alaagtiisa waxba kama aha xoolahanina waa xoolihii ilaahay adduunida ugu timi cirka kamaad keenin adugu meel cusub kamay soo bixin waxaad xoola haysataan iyo muuqaalka leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh quluubta waxa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa iyo dhaqankiina waxa idinka soo fulaya acmaala idan ayuha alaxibba ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka anaa abuuray anigaa shucuub iyo qabaa'il ka dhigay shacabo kala gadisan kuwa indha yar kuwa indha waaweyn kuwa indha jeexjeexan anaa saa u abuuray baa ilaahay leeyahay waa khalqullah cidna iyadu ismay samaynin oo say doonayso isumay samaynin waa ilaahay sancadiisii dhammaantood qabaa'il la ka dhigay maxaa looga dhigay يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بإلهي marka hore aabiyo hooyo quruma ku abtirsataan ama indha waaweyno ama indha yaryaraw ama caddaa waha ama caynkana haw asal qurumba wada leedii cid meel kale laga keenay ma jirto cid meel kale ka timi ma jirto asal kaliya ayaa wada leedin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ana shucuub iyo qabaa'il idinka dhigay maxaa la idinka dhigay baa ilaahay leeyahay litacaarafu inaad isku garataan dadkoo dhamma hadday mid qura wada ahaan lahayd dee mabaynan kala garanayn laakiin waxaynu ku kala garannay inay reere kale yihiin iyo magacyo kale leeyihiin iyo midaba kale leeyihiin waa lilmacrifa litacaarafu baa layidhi amaa markay noqoto qiimo markay noqoto inaynu miisaanka dadka saarno maxaynu ku saaraynaa maqoladu ka dhashay maynu cadyey maynu madowye maya ilaahay wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxa idinku sharaf badan baa layidhi alkariim ibnu lkariim waxa ah akramakum cinda allah alla agtiisa waxa idinku mudan idinku maamuusan kiina alla ugu cabsi badan markaasaa ilaahay weliba wuxuu leeyahy in allaha caliimun khabiir ilaahay waa mid wax og oo ogaal badan oo khibrad badan weliba idinkala garanaya alla agtiisa waxa ka joogtaan wardadoo buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinka kaxeeyey kibirka iyo isla weynidii jaahilnimada iyo aabba kufaankii fannaasu rajulaan taas waa wixii jaahiliyadda waa laga baxay dadku waa laba buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid saddexaad ma jiro waa labadee rajulun barun taqiyun kariimun cala allah mid samafala oo alle ka dhowrsada oo ilaahay agtiisa sharaf ku leh kariim cala allah mid waa ka kalena waa maxay wa faajirun shaqiyun hayinun cala allahi buu nabigu mid faajira oo xuma samayn badan shaqiya oo hayinun cala allah ilaahay agtiisa ku liita ilaahay agtiisa aan magac iyo maamuustoona ku lahayn wannaasu banu aadam وخلق الله آدم من تراب حقا أبترك هدين الله إذن كأغانا دي آدم أمبا كوضتي ما دين آدم نردوبا لك السمية يبو النبي عليه الصلاة والسلام دي أبترك إن الله أغانا نوع ساودتي هدي قيمه إن الله أغانا الله بضع سنباتي صفة كلمة جرتو إذن أيها الأحبة وحلقوا قيمة يقفكوا إنتو دينتي سحيستو وحلقوا قيمة إنت آني مغرياتكم waxyaabahan bini aadamka gagadiya inta aanay gadinin saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy min almu'miniina rijaal mu'miniinta rag baa ka mid a rujuuladan in la sheegaya waa kuwee sadaquu maa caahadu allaha calayh
waxay ka run sheegeen ballanka ilaahay u qaadeen laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah markaad tidhahdo ballan baad gashay waa kuwa ballankaa ka run sheegay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قارنا ساسي ku geeriyoodeen qaarna jidkay hayaan buu alla leeyahay subxaana wa tacaala raganimo wataa u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minni wa ana minhu saxaabi baa jiray julaybiib la yidhaahdo julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoolo haysan buu ahaa yani wixii dadku ay wax ku qiimaynayaan qurux male dharar nin nale ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan julaybiibkii nooca ahaa buu nebigu ku yidhi war maad guursati julaybiiba maad guursati markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nebiga la xidido oo gabdhaha reeraha soo koray in waliba wuxuu jeclaa inuu nebiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalo inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadh ku weydiistay nacam wa nucma caynin buu yidhi haa يعني وكسينيا وابا النعمة عين ومدي كدوك ستو النبي محمد عليه الصلاة والسلام حددنا مدي صاد هالشو دبتنا النبي يقول لك وحكو يري إني لست لنفسي أريدها أنا أقول نفتي دو دوني ما يبغي النبي عليه الصلاة والسلام قبل دواك دوني لكن أنا أقول ما يهي قفك نفتي سو دوني قال فلمن وهذا إلهي الرسول كسي ويا الله ربط أبوك يري قال لي جليبيب بنبوي جليبيب بانا إن أنت ودونية نينكي مركز صدبو يرى فريست دبيتنا وحولي إلهي رسول كيسيو دبل إن أنت هو يداد على التشاضو إن أنت هو يداد على التشاضو إن أنت هو يداد باللوتك وحكوا لي نبي محمد بان أنت ينقى صوت دورك هي أنا سيدي سلك بيتني نعم ونعم معي markaasuu yidhi lafihiisa u dooni maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi faliman yuriiduhaa haddaa inanta yuu inoo weydiinaya waxaa lagu yidhi wuxuu inanta u doonaya lijulaybiib ninkii julaybiib la odhan jiray ayaa gabadha loo doonaya islaantii waxay bilowday xalqaa bay tidhi xalqa waa min xalqa waa xiristi وبايي وكالي يشبايي يهوغي يدا سومالو تراهدو كالي ويا اسلانتي واو وراني يدو فيلي نيمبا علي جليبيب بي مركا كو خكسيس بايي يما جليبيب بابا مانتا لا يوضا باي سلامتو ليد وبدارت لا لعمر الله لا ازوج جليبيبا الهي بان كو دارتي جليبيب انو غبر اسكا سين ما يبي سلانتي و بود odaygii dee islaanta warkeedii aniga markuu isiri kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tidhi man khatabanii ilaykuma ooyo yaa ikiin weydiistay waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tidhi oma ilaahay rasuulkiisa warkiisaa celinaysaan inta nebi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nebiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nebi maxamed ay dayacin bay tidhi idfacuni ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam fa innahu lan yudayicani nebiga igu wareejiya bay tidhi nebigu i dayici maaye odaygii iyo islaantiiba inanta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nebigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiib gabadhii waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyo wey u guuri julaybiib iyo ciddii aad doonaysaba nebigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu duceeyey wakhti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen
dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid waliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidna ma idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxaa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodun baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinnii afqidu julaybiiban war anigu julaybiib baan la ahay buu nebigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya ayaa geeriyooday reer waliba leeyahay waa joogaa raggayagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 dilay markaasay iyana dileen aakhirkii aqatala 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه بنبي عليه الصلاة والسلام ما 7 dilay markaasay dileen buu nebigu yidhi kaasi hada minii wa ana minhu buu nebigu leeyahay kaasi anuu iga tirsan yahay anna isagaa ka tirsanay kaasuu nebigu tirsanaya uu leeyahay isku koox baanu waa fool xun yahay waa gaaban yahay hanti mala iyo nebiga agtiisa waxaasi maaha wuxuu ragga ku qiimaynaya raggu tirsanayo ee uu baadi goobayo muuqaalkoodu siduu u ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minii wa ana minhu 7 jeer buu ku celceliyey bay riwaayaadka qaarkood leeyihin dabeetana madaxuu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayey nebi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kaloo loo dhigay ma jirin ee gacmaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayey ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimaynayo ma aha madaahirta kaa muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isagii xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo uu cagta ka qajidhanaya cagaa ka laabanayso waa meel aan 2 qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa innaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soogal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka innaga musqusha inoo ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka beddelay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kuwa munaafiqiina isagoo ka warramaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay haddaad aragto jidhkooda iyo weynida iyo qaabka iyo xoogga iyo say u eg yihiin waxa ku cajab gelinaya baa ilaahay yidhi jidhkooda laakiin weliba waan yaquulu tasmac liqowlihim baa layidhi hadday hadlaanna warkooda waa dhegaysanaysaa laakiin maxay yihiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kaannahum khushubun musannada loox la tiiriyey bay la mid yihiin baa layidhi yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qatalahum allahu annaa yufak ilaahay wuxuu tilmaamaya qolofta weyne inaanay alle agtiisa qiimo ka lahayn munaafiquba inuu qolof weynaan karo qiyaamahana waa ka nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ya'ti alrajul alcadiim alsamiinu yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa mid weyn oo buuran oo xoog leh ilaahay agtiisa garab kaneeca lama miisaanaha baa la yidhi kaneeca intay leegta marka hore ayaanay garaab ahayn kaneeca lasii qaybqaybiyey oo baalkeed la soo qabtay baal kaneeco alla agtii miisaankiisu kuma aha markaasaa la yidhi haddaad rabtaan waxa akhridaan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan aakhira miisaanba kuwaa lama saaro looma taago ayuha alaxiba caliy bn abi aalib baa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu mascuud oo geed koray oo wax ka soo qabanaya
أي صحابة يجين عبد الله بن مسعود ومقشان سماها وصحابة علم عن كقواهي لكن مقالها لنا ضبوبا ومتشردوبا وتمر يربوها دبتنا عبد الله بن مسعود وقات كوريا وحكسو قوينيا أي دودومدي سير دودومنا أركين مركاسا الله قص الله فضحكوا من حموشة الساقي أي من دقتها أدما دودومني دي سهرقي بركو غصله نبي عليه الصلاة والسلام حويدي ما تضحكون ورمحكوا غصل ليسان للرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد أدن كايرة في قرية كوكس شاب النبي قولي إلهي أكتي سبورته وحدو كعلسيه وبورنا أنا أحد ليراضه ومدينة أكتي قطالة بورته وحد إلهي أكتي سوحا كعلس النبي قلت الماما يا محي رجل عبد الله أدن كولي هي عبد الله بن مسعود أيها الأحبة موازينته وقلدنت يمك آد وقلدنت وايو dadka waxa lagu qiimeeyaa jaahiisa mansabka uu haysto waa caaqil waa sultaan waa wasiir waa madaxweyne waa agaasime waa korneyl waa janan mansabka uu haysto ama jaaha uu leeyahay odaygii hebel laakiin raggu nabi maxamed agtiisa kaa kumay qiimaysnayn isagoo fadhiya nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nin la fadhiya qola soo martay nin baa soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada warbal ninkaa ka warran nin meesha maraya ninkii warbixintay ka bixiya waa maxay ma taquuluuna fi hada buu nabigu tilmaamay ama ma ra'yuka fi hada waxay idhahdeen rajulun min ashraafi innaas waa nin dadka mudan ka mid ah waa nin bay yidhaahdeen hadduu hadlana waa nin la dhegaysto hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbala bay yidhaahdeen ninkani annaga agtayada saasuu yahay bay yidhaahdeen wuu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayaa mid kale soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada bal kana ka warran أما ما تقولون في هذا كان ما يسقى محاورنا يسا وإذا هذا رجل من فقراء المسلمين كان وامد وحما هيستطاع مسلمين تكمل بيد هذا وأنين هدو قبلك ويديستنا على الصينين هدو إرقاك هو يمادنا إرقا ديسا على أغبالين ووحي كيه ركشيغان عكسي سوي كان كشيغان نبي عليه الصلاة والسلام حديثك بخاري كيالا labadaan nin dadku laba miisaan bay kala saareen mid miisaana bay saareen ashraafu nnaas inuu ka mid yahay waxay saareen inuu yahay nin loo guuriyo hadduu gabadh ku weydiisto oo hadduu hadlo nin la dhegaysto oo hadduu erga kugu yimaado nin ergadiisa la aqbalo ka kalena waxay saareen nin masaakiinta fuqarada muslimiinta ka mid oo aan waxba mudnayn dadka agtiisa aan waxba ka ahayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa siday ka yihin نبيكم مركز وحولي هذا خير من ملء الأرض مثل هذا كان أيضاً إذن لليتا أي وحوك خير بدن يدريد مجدو كان ما هكذا با كان كخير بدن وحويا دريد مجدو نوعنا من كان الشيء يسان دريد أردنو لقبرو حيي وحا اسكو داما ننقرا ننكنا قرا داما بنبي عليه الصلاة والسلام يعني ميزانكم ما هبوا لي هذا الكأي مقعي منصب كأي حولها وحنا شيء سان ما هم ميزانكم ونبغوا المامي عليه الصلاة والسلام إذن أيها الأحبة قيمهم معها أبترسينت يرير قد كان لطيه سيدي مقعوا لها رير هبلا ما الله عندنا وقرضا كان الشيء تربضنا فربضا أيام النحي dadka ayaa u nasab fiicnaa nabi maxamed soo maaha hadda nabi maxamed oo dadka ugu nasab fiican ayaa ilaahay kii adeerkii la dhashay yidhi tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab hadduu nasab waxtarayo abi lahab waxtari lahaatee
صحيح ما هذه رير بانك هذا شيء ونين هاشمية أو قريشة أو كنانية مضر كابتر صدا والله يقارنه ابن كثير وحليه باللهب وحلوه بحيبة وضاء دلالك وجهيسية قروح الدراديد هي اللوغو بحيبو لي مركو هربا لكن قروح دا هي دلالك هي ريركا وكدشي وحبا ما يترين إلهي وحكوت المامية سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وطب قعمها أبي لهب هوغي أيها الأحبة وحين سرندونا كلمات كوبان إن شاء الله تعالى oo ku saabsiisan nolosha tan miisaanka Allah u dhigay subhanahu wa ta'ala in lagu qiimeeyo laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan rabbi wuxina leeyahay subhanahu wa ta'ala rusul baan soo diray iyagoo bayyinaat wata cadaymo wixii cadaynayeen in rusul yihiin mucjizaat maxaa lagu soo diray rususha الكتاب والميزان با إلهي تلمام كتابك يا ميزان نلاش اللغو ميزامو عصر قندم به دادك وحاقاد وقالوا ما ميزان كي نلاش قبقيد با هدي بلشادة وحي وحكو قيمين يساقوا اللمو مفاهيمتو أي قلدانتو نلاش أردن با قلدانتا dadka waxa ka qaldamay xaqiiqatu dunya maxay tahay adduunku muxuu yahay dadnimadu maxay tahay insaaniyad iyo bini'aadamku muxuu yahay way luntay waxa dunida hogaaminaya wuxuu filosofkii Faransiiska ku tilmaamay nidaam التفاهة Francisco filosofa Canadian u dhashay ayaa kitaab qoray la yiraahdo nidaam التفاهة nidaamka liidashada wax la'aanta yani dunida dad maran ba hogaaminaya buu leeyahay waa nidaam maran taafih waa shayga xaqiiqka ah waa nidaam xaqiiro liita nidaamkani wuxuu lumiyay markaa dadnimadu maxay tahay waxa wax lagu qiimeeyaa wuxuu dadka u raray in madaahirta muuqaalka in wax lagu qiimeeyo dadku wada mashquulsan yahay wuxuu ku mashquulsan yahay qurux wax la yiraahdo qof isqurxiyay gabadh isqurxisay quruxdii dunida loo lamayo markay bini'aadamka dhaafeen bay xayawaanka loo lansiiyeen nimanka gaalada agtooda maanta shooyaal la qabtaa la leeyahay rida dunida u qurux badan kaasaan niman soo fadhiisanayaan oo sifaynayaan indhaheedu say u eg yihiin afkeedu siduu eg wari يعني waa markay noloshu wixii wax lagu qiimeeyay uu lumo noloshu muuqaalka maaha sidaad u eg tahay maaha inaad madowday inaad cad tahay inaad fool xunta inaad fool xumayn maaha ولذلك وأنس بن مالك وحليه waxa jiri jiray saxaabadii nin kamid ahaa oo la oran jiray Zaahir saxaabiga kan Zaahir la yiraahdaa زاهر بن الحرام فاها بالي إننا هذا فالح أركا قروح ضيّة واحد بنادم كوي شيغان إننا هذا فالح بوها وررمية نبي عليه الصلاة والسلام ببادية انتو كيما ده هدية كيني شري نبي قلنا مقالة كسي تاكلين شرو كدري شري ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيري إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون زاهر وررمي يجي أننا وحنا نهي غير مقال كيسيب النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام مال ما كمدوا الزاهر مقالة دايمي النبي عليه الصلاة والسلام هدية كاني إسقى وحيو ستة سوق كوي من أيو سوقي وحلوك لا يبسني يشوجا أيو النبي حاجة دمك غيبي إسقى سيتش هذا مو صلاة وقفتين النبي وأنا سيتش هذا نكرر ميجي مركا وحولي ورسيدة وكما ما أركو مركا عدن هيسا حاجة دمك هيسا كاري ما يو إسيدة مركو كعليي إسقى أنا أركيني أرسلني ولاي هاي أيو هوستا كتشلع عيدة بتروح أركينو نبي عليه الصلاة والسلام
markuu gartay inuu nebi maxamed yahay buu isku nabay markii hore sii daa buu lahaa laakiin markuu ogaaday inuu nebigii yahay ayuu isku nabay nebigu isagoo kaftamaya markaas waa kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa yaquulu ila alxaq waxaan xaq ahayna kuma kaftami jirin isagoo haya buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabd war addoonkan yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay suuqii bay dhex taagan yihiin xagga dambuu ka hayaa waa addoon ilaahay dadkoo dhan nebigu intuu qabtay buu wuxuu yidhi man yashtari hada alcabd addoonkan yaa iibsanaya زاهر بن نبي وجوابي مكة يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا إلهي رسول كيسيا والله قدرتي وأكو باري يا أبوي عاتنا هذا أنا لابد من السوق اللي جايب سواي أي باري هيودا أما وي باري داي أما وي كنا عضي أما وي قفر السطي بعضي تصوير على الصماء على ما كانوا وي قفر السطي وكان بحويجي وحول إلهي رسول كيسيا إلهي ما قدرتي هذا أنا السوق جيسو وكاسد ما كنا قلنا يا بولي وكوكو باري نبي عليه الصلاة والسلام وجوابه حقوري لكن عند الله لست بكاسد إلهي أكتيسة مد كاسدة ما كنت هدو نبي عليه الصلاة والسلام إلهي أكتيسة مد باري يا ما مدكو قيمة الليتا ما تهدو لي رواياتك قار كودنا أنت عند الله غالب إلهي أكتيسة قالبة قطي قيمات كل هذا حديث الشمائل المحمدية لا يكون غريبا عن حديث الساعة محوت المامي حديث كريم أنه موقال كقفك بني آدم كقيمي سواحين تدكم مانتا محاد سمارسي إيا محاد حرطي إيا محاد كريم كات سوى استعماشي إيا براند كيبات حرنطاي مريها قم نايك باب سواه بلايم سواه بوما وحلقة فكرة إيا موقالك iyo jirkaagu suu dhisay iyo midabkaagu siduu eeg yahay waxay dhahdaan dhalinyaro badan ba hadda Facebook iyo waxa la mid waaleen waayo mid baa Photoshop intuu galo gacantiisa wax ku sifeeyo ayuu odhanaya halkaasaan joogaa markaasuu kanaan halkaa joogin niyad jabaya kana waa been meeshuu sheegaya baagi hore waxay dhahdaan qofku notebookisa waxa uu qorto sir bay ahaan jirtay mudakaraadkiisa wuxuu rabi jiray markuu dhintay iyo meelaha in la akhriyo imkana qofku wax kasta uu qoro intuu meesha ku soo dhigo like ba layma saarin buu leeyahay lama akhrimin yani nolosha wixii lagu qiimeynayay baa isbedelay oo tawaafihda noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rubba ashcaf madfuucin bilabwaabi law aqsama cala allahi la abar رب أشعث لا أركي أما بدنا أما يرك أدون تبردو مد أشعثة مد بصاصيسا أنفردنين ومدفوع بالأبواب الباب بدأ مد لقى علياء أن مناصب يمقع يمقال وين يوحي دتكو قيمة ينا وظنين لكن إلهي اكتسم حكا لو أقسم على الله إلا أبره إلهي هدو كدارته hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay uu rumeeyo siduu u dhaartay looga dhigo u fiirso qof markuu dhaarto ilaahay uu rumaynaya dhaartiisa oo sidii ay noqonayso ilaahay agtiisa qiimuhu ku leeyahay intuu leegyahay laakiin cinda annaas wuxuu nabigu ku tilmaamaya inuu yahay madfuucun bilabwaab albaabada mid aan laga furin mujtamacii muslimka hore aragtiday nolosha ka qabeen markay ka ahayd bay xadaarad dunida keeneen markaasay horumar keeneen markaasay dunida hormood ka noqdeen markay ku dhaqmayeen inuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ila suwarikum walaa ila amwaalikum walakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum ilaahay muuqaalkiina ma eegiyo maalkiina toona taasi alla agtiisa waxba kama aha kan foosha xun laya kan quruxda badan waxa oo dhan waa sancadii ilaahay idna adugu maad samaynin marka sidaa u egtiin xoolahanina waa xoolihii ilaahay aad dunida ugu timi cirka kamaad keenin adugu meel cusub kamay soo bixin meelahan umaad ka soo ururaysa waxaad xoola haysataan iyo muuqaalkaa leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh
quluubta waxa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa aliimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir quluubtiina waxa ku jira iyo dhaqankiina waxa idinka soo fulaya acmaala idan ayuha alaxiba المعرور بن السويد قال لي لا داو حلي وحا لكل من صحابي لو رجري أبدا وربده تولي رودو مدينة دقن ويساق يننو شقين يمدبا حلة حلين يحي حلة دو اسكو تشوب رواية غاركونا وحي لهدان حلو كلا قيبيو ان كنا قيبو حدنا كنا قيبو حدنا مركاسوني كيو حلي ما دسكو تشوب قادو اسكو حدت كان شغالها انت هذا نص ينسو على كل حال ماشي waxa ka muuqata Abu Dhar iyo ninkii uu shaqeynay isku mariya sita inagu de shaqaaluhu waa miskiin yar baynu ka dhignaa heeliye xidhan aniga guriga la waxa ragoonaya laakiin Abu Dhar isaga iyo shaqaalihiisa ba isku xidhan dabeetana su'aal baa la weydiiyay maxaa dhacay baa la yiraahdaa adiga iyo ninkii ku shaqaalaa la idaba kala garan maayo isku mariya sitaane Abu Dhar baa ka jawaabo wuxuu yiri nin baanu bariis maagno aan caayi dabeetana hooyadii baa ku caayi waxay hooyada madoobe dhashay baa ku markaasuu nabigu wuxuu ku yiri yaa Abu Dhar acyartahu bi ummi wa Abu Dhar ninkan ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mar'un fika jaahiliya bu nabigu waxa tahay nin wali dhaqamadii jaahiliyada wax ka haysta halkii lagu la rabay ma soo gaadhin bu nabigu Abu Dhar markaa uu tilmaamayay miisaankaad wax ku qiimeynaysaa wali madow iyo cadaan iyo xoolo iyo waxa kana waxaan ilaahay agtiisa wax lagaga qiimeynin sida daraaddeed buu nabigu wuxuu ku leeyahay innaka mar'un fika jaahiliya waxa wali kugu sugan wixii qabla alislaam dadku ku dhaqmayaan wax ka mida war dadkani buu nabigu ku leeyahay ikhwaanukum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaaladiina oo ilaahay gacantiina soo geliyey ninkii walaalkii uu la joogo shaqaale uu yahayow falyutcimhu mima yaakul waliyulbisu mima yalbas war waxaad cunaysa wax ka mida isna sii ambada ha siine waxaad cunaysa wax ka sii waxaad xidhantayna wax ka huwi waxaanay awoodi karinna ha ku kallifin haddaad waxaanay qaban karayn inuu dirtana adiguna la qabo nabigaa sidaa igu yidhi buu yidhi xadiidka bukhaari iyo muslim ku yaala إذا waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimeynayo ma aha madaahirta ka muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nabi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isaga iyo xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo oo cagta ka qajiran iyo cagaa ka laabanayso waa meel aan laba qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa inaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soo gal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka inaga musqushayno ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka bedelay sida awgeed miisaanka dadka lagu qiimeeya ama nolosha lagu qiimeeyo ma aha inta aad adduun iyo xoola haysato su'aal labaadaan keeno saxaabi baa jiray Julaybiib la yidhaahdo Julaybiib waa tasghiiru jilbaab Julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoola haysan buu ahaa yani wixii dadku ay wax ku qiimeynayaan qurux male dharar ninna le ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan Julaybiibkii noocahaa buu nabigu ku yidhi war maad guursatid Julaybiib maad guursatid markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiina saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nabiga la xidido oo gabdhaha reeraha soo koray in waliba wuxuu jeclaa inuu nabiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalo
inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadh ku weydiistay nacam wa nucma caynin buu yidhi haa yani waa ku siinaya waaba nucma cayn waa mid ili ku doogsato in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xididnimadiisa aad hesho dabeetana nebigu ninkii wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu naftayda u dooni maaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu gabadha waa kaa doonaya laakiin anigu ma ihi qofka naftiisa u doonaya qaala faliman oo haddaa ilaahay rasuulkiisiiyo yaad la rabtaa buu ku yidhi qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baana inanta u doonaya ninkii markaasuu dib uu yaro fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow debel inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed baa loo tegey wuxuu ku yidhi nebi maxamed baa inantii inaga soo dooray iyana sidii si leeg bay tidhi nacam wa nucma cayn markaasuu yidhi lafihiisa u dooni maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi faliman yuriiduhaa haddaa inanta yuu inoo weydiinaya waxaa lagu yidhi wuxuu inanta u doonaya lijulaybiib ninkii julaybiib la odhan jiray ayaa gabadha loo doonaya islaantii waxay bilowday xalqaa bay tidhi xalqa waa min xalqa waa xiristi waa ba'ayay oo kale iyo jabaya iyo hoogayay da soomaalidu tidhaahdo oo kale weeyaan islaantii waa waraanay iyadu filayninba ali julaybiibin bay markaa ku xigsiisay ba'aya iyo ma julaybiib baaba maanta la ii wadaabay islaamtu leedahay waaba dhaaratay laa lacamrullaahi laa uzawiju julaybiiban ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anuu gabadh iska siin maaya bay islaantii u booday odaygii dee islaanta warkeedii arega markuu isyidhi kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tidhi man khatabanii ilaykuma ooyo yaa ikiin weydiistay waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tidhi oma ilaahay rasuulkiisa warkiisaa celinaysaan inta nebi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nebiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nebi maxamed ay dayacayn bay tidhi idfacunii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam fa innahu lan yudayicani nebiga igu wareejiya bay tidhi nebigu i dayici maaye odaygii iyo islaantiiba inanta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nebigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiib gabadhii waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyo wey u guuri julaybiib iyo ciddii aad doonaysaba nebigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu duceeyey wakhti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid weliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidna ma idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxaa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodii baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinnii afqidu julaybiiban war anigu julaybiib baan la ahay buu nebigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya yaa geeriyooday reer waliba leeyahay waa joogaa raggayagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 dilay markaasay iyana dileen aakhirkii aqatala 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه بنبي عليه الصلاة والسلام ما تدبوا دلي مركاسي دلين بنبي يري كاسي هذا مني وأنا منه بنبي لي كاسي أنو يجي ترسني هاي أنا يسقى كترسني كاسو نبي ترسني يا ولي سوق أحبام
وفول حنيه وقابن هي هنتي ملائيه نبي هكتي سوى حاسمها وحرقة كو قيمينيه رقو ترسنايو او بادي قوبايو muuqaalkoodu siduu u ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minni wa ana minhu 7 jeer buu ku celceliyey bay riwaayaadka qaarkood leeyihin dabeetana madaxuu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayey nebi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kaloo loo dhigay ma jirin ee gacmaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayay ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxay tilmaamaysaa iska imaam alalbani baa ku soo arooriyey saxiix aljanaa'iska imaamu axmed iyo ibnu xibbaanna waa soo saareen aslu lqisana saxiixu muslimkay ku taallaa waxa uu tilmaamayaa nebiga raggu qiimaha agtiisa ku lahaa noocay ahaayeen iyo ragga wixii lagu qiimeynaya wuxuu ahaa muwaasiintu way qaldantay iminka aad bay u qaldantay waayo dadka waxa lagu qiimeeyaa jaahiisa mansabka uu haysto waa caaqil waa sultaan waa wasiir waa madaxweyne waa agaasime waa kornayl waa janan mansabka uu haysto ama jaaha uu leeyahay oo odaygii hebel laakiin raggu nebi maxamed agtiisa kaa kumay qiimaysnayn isagoo fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nin la fadhiya qola soo martay nin baa soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi haada war bal ninkaa ka warran nin meesha maraya ninkii warbixintay ka bixiya waa maxay ma taquuluuna fi haada buu nebigu tilmaamay ama ma ra'yuka fi haada waxay idhahdeen rajulun min ashraafi innaas waa nin dadka mudan ka mid ah waa nin bay yidhaahdeen hadduu hadlana waa nin la dhegaysto hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbala bay yidhaahdeen ninkani annaga agtayada saasuu yahay bay yidhaahdeen wuu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayaa mid kale soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi haada bal kanna ka warran ama ma taquuluuna fi haada kan ma isaga maxaa odhanaysaa waa idha hada rajulun min fuqaraa'i lmuslimiin kani waa mid wax mahaysatada muslimiinta ka mida bay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiistana aan la siinin hadduu erga kuugu yimaadana ergadiisa aan la aqbalin waa wixii ay kii hore ka sheegeen cagsigiisi bay kana ka sheegeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisku bukhaari ku yaalla labadaa nin dadku laba miisaan bay kala saareen mid miisaana bay saareen ashraafu nnaas inuu ka mid yahay waxay saareen inuu yahay nin loo guuriyo hadduu gabadh ku weydiisto oo hadduu hadlo nin la dhegaysto oo hadduu erga kugu yimaado nin ergadiisa la aqbalo ka kalena waxay saareen in masaakiinta fuqarada muslimiinta ka midoo aan waxba mudnayn dadka agtiisa aan waxba ka ahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa siday ka yihin nebigu markaasuu wuxuu yidhi hada khayrun min mil'i alardi mithli hada kana idinku idinla liita ayaa wuxuu ka khayr badan yahay dunida muggeedoo kana ma aha kan baa kan ka khayr badan waxa weeyaan dunida muggeedoo noocan ah ninkan aad sheegaysaan dunidoo dhan oo laga buuxiyey waxaa isku dhaama nin qura ninkanoo qura dhaama buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni miisaanku ma aha buu leeyahay hadalka iyo magaca iyo mansabka iyo xoolaha iyo waxaanaad sheegaysaan maaha miisaanku buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku markay madhaan ee mawaasiintu lunto casrigan aynu hadda joogno feedha buurnidaaba la isku qiimeeyaa sooma tidhaahdaan waa six back ninkani 6 wasalladood buu caloosha ku leeyahay maro iyo siduu u feedha buuran yahay ama uu traininka u cayaaray waa kuu sheekh maxamed qutbi odhan jiray waa cujuul bini aadama buu yidhi waa dibiddada
إلهينا قرآن كيسوي حكولية كوا منافقين يسقوا كورمية وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بإلهي هذا دركته جدكود يا وينيدا يا قابك يا حوك يا سيويجيهين وحكوا عجب قالين يا بإلهي جدكود لكن ولبوين يقولوا تسمع لقولهم بالي هذا لأن وركود ودقي سنسا لكنهم حيين إلهي وقت المامي كأنهم خشب مسندة لوح لتيريي بين لم يديهم بالي وإلهي كتاب كيسي قري لتيريي يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفر إلهي وقت المامي يقولفت وينين أنا ألاكتي سقيمك لهي منافق بين قلف وين أنكره قيامها نوى كنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة قيامها وحلكين يا مدوين وبورا وحوق له إلهي يكتيسة قرب كان يعلم ميسانها بلي كان عينت لكت مركه رياني قرب هي كان على سي قيبيي oo baalkeed la soo qabtay baal kaneeco alla agti miisaankiisu kuma aha markaas la yiraahdo hadaa rabtaan waxa akhridaan fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna akhir miisaan baqwa lama saaro looma taago ayuha alahibba Ali ibn Abi Talib wuxuu nabiga alayhi salatu wassalam saxaabigii la oran jiray Abdullah ibn Mas'ud oo geed koray oo wax ka soo qabanaya ay saxaabadu eegeen Abdullah ibn Mas'ud waa maqashan Soomaa waa saxaabadii cilmiga caanka ku ahay laakiin muuqaalahan inaad u dhuuban oo mijadhuuban oo tamar yar buu ahaa dabeetana Abdullah ibn Mas'ud oo geed koray oo wax ka soo goynaya ayay dhudhumadiisii dhuudhuubnaa arkeen markaasaa la qosqoslay فضحكوا من حموشة ساقي أي من دقتها أدم الدودوبني دي سرقي بركو غسله نبي عليه الصلاة والسلام حويدي ما تضحكون ورمحكوا غسل ليسان للرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد صحيح الأدب المفرد بكون أدن كايرة في قرية كوقص الشاب النبي قولي إلهي أكتي سبورته وحدوك علسيه وبورنا أوحد لا يراهضه ومدينة أكتي قطالا بورته وحد إلهي أكتي سوحا كاقا علسط النبي قلت الماما يا محي رجل عبد الله أدن كولي هي عبد الله بن مسعود أيها الأحبة قيمهم معها أبترسينت يرير قد كان لاتيه سيدي مقعوا لهايه reer hebel amaan oo laandheera ah oo qolada ka dhashay tiro badan oo fara badan ayaanu nahay ilaahay agtiisa waxba kama aha dadka ayaa u nasab fiicnaa nabi maxamed soo ma aha hadda nabi maxamed oo dadka ugu nasab fiican ayaa ilaahay kii adeerkii la dhashay yiri tabad yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab haduu nasab waxtarayo أبي لهب واحتري لهذا سواء كما هذه رير بانك هذا شيء ونين هاشمية أو قريشة أو كنانية مضر كابتر صدا والله يقارنه ابن كثير وحلية بلهب وحلوه بحيبة وضاء دلال كوتشي سي قروح الدراد ايا لوغو بخيبو لي marka horeba laakiin quruxda iyo dhalaalka iyo reerka uu ka dhashay waxba may tarina ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahab wa tab gacmaha abi lahab hoogay ya abi lahab hoogay ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuha alahibba إلهي وحينا لي سبحانه وتعالى بن آدم كان أبوري أنا شعوب إيا قبائل كردقي شعب كلا قدسا كوين دير كوين دواوين كوين دا جاحا أنا صاوى أبوري با إلهي لي وخلق الله عندنا إيادو اسمي سمينين
وسيدوني سيسمي سميني وإلهي سنعديسي لما أنتود قبائل لك أدقى محال لو أدقى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بإلهي marka hore aabiyo hooyo quruma ku abtirsataan ama indha waaweyna ama indha yaryaraw ama cadaaw haw ama caynkana haw asal qurumba wada leedii cid meel kale laga keenay ma jirto cid meel kale ka timi ma jirto asal kaliya iyo wada leedin baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala ana shucuubiya qabaa'il idin ka dhigay maxaa la idin ka dhigay baa Ilaahay leeyahay li taaraf ina isku garataan ana tarawanin reer hebel weyna hebel waa ka dadka dhamma haday mid qura wada ahaan lahayd ma bayna kala garanay laakiin waxaynu ku kala garanay inay reer kale yiin iyo magacyo kale leeyihiin iyo midab kale leeyihiin walil ma'rifa li ta'arafu balay amma markay noqoto qiimo markay noqoto inaynu miisaanka dadka saarno maxaynu ku saarayna maqaladu ka dhashay maynu cadiyay maynu madowiyay maya ilaahay wuxuu leeyahay inna akramakum 'inda allahi atqaakum وحيدنكو الشرف بدن بالي الكريم ابن الكريم وحا أكرمكم عند الله الأكتي سوى حيدنكم مضن إذنكم ماموصا كينا لو عبس بدن والكسا إلهي ولبو حلي إن الله عليم خبير إلهي ومد وحق وقال بدن وخبرت بدن ولبا إذن كلا قرانا إياه الأكتي سوى حكي شوكتان أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم ما كفرتي ما قريش بدقنيت ودتك يسكوينين يسي وورك يسي وين دتك حرمك الله دورتي يهين وحتى حجك دتك هلكي وكسو أنا يعرف دي اللي تجي يدا نبو مني هنقوليها هلك دتك كلا تجي أنا وهلك سكاي وما نقص الله بنا حرمك كما بحنو أي النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام مركو فرطي وحول يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها وارضضوا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحويد ككحي كبر كيئس لوين دي جاهل لماذا يا أبا كفانكي فالناس الرجلان تاسوا وحي جاهلية ولا بحر تقوى الله أم النبي عليه الصلاة والسلام من صدق حد نشره تقوى الله ولا بديه رجل بر تقي كريم على الله مدسم فله ولا كدور صدا وإلهي أكتيس الشرف قله كريم على الله مدواكا ككلنا وامحي وفاجر شقي هين على الله بالنبي متفاجرة حما السماين بدن شقية وهين على الله إلهي يكتيس كليته إلهي يكتيس مقعية ما مصطانة كلهاي والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب حقا أبترك هدين الله يدنك يا جنا دي آدم مبكى وضعت ما دين آدم نردوبا لك السماء النبي عليه الصلاة والسلام دي أبتركي إن الله يجانا نوع عسى ودتي هدي قيمه إن الله يجانا الله بضع سنباتي صفة كلمة شرته رجال نماذو وحلقوا قيمة يا قفكو إنتو دينتي سحيستو وحلقوا قيمة يا إنت آني مغرياتكو حيابهم بنا آدم كجدية إنت آني قدنين صدر أدد بإلهي وحلي من المؤمنين الرجال ومن انت الرقبة كميدة الرجولة دانير الشيء يواكوه صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحيكرون شيء بلنك إلهي وقاضي لا إله إلا الله محمد رسول الله مركات هذا بلا باطش وقوة بلنك كرون شيء رب إليه سبحانه وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قارنا ساسي كوغيريودين قارنا جدك هيان بوال لله سبحانه وتعالى رغني مواطا dadka ilaahay agtiisa ku sharafta leh xagee laga helay xagee joogaan
إلهي وحلي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. كوا كريماش الله هلا وقريها إلهي سبحانه وتعالى قريها ربي لها الله كوريالو وإلهي سبحانه وتعالى هلو حسابك عيسى هلو كوريالو كوا كوريالا يا وأيو يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال فاعل غدك رجال با إلهي والتصبيح سيقالين هوريا قال انت بابا رجال كان صفاته محيتي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إلهي وينديسا يا عبسديسا كما مشغول الصه بدك أدونكو تجارة يا وحيبسك يا وحكا إنك عكسك والبرسلات هاي دم بيسورتا وحي دافا يا بعض هذا فرصة ويني لكن كوا كان إلهي وحكو صفين أين يهين محي الدنيا ما مشغول السبع إلهي لي بيع هي التجارة كما مشغوليا إلهي حسكي هي صلاة وقستيدا هي الزكاة بحستيدا وأيوه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة والرقد ذا الكود ويهي إني حقا اللي وعررا أدونك مركا لقا ورما يوحى لني فامشوا في مناكبها اسكا صعدوا إلهي أرساق دي سرات سيدا بالي. أما حق الذكر القرآن مركو كورما يو وسابقوا يصارعوا فاسعوا إلى ذكر الله وأرضى ففروا إلى الله. حق عبادات كي يدي انت مركا لقا ورما يو قرآن تعابيرتا أرض بو استعمالك يدقدق ورك حق كان ماشي ربان إني هرو قادان أي تحي. أما أدونك مركا يشوكتو فامشوا في مناكبها بالي اسكا صعدا والرق إلهي كنت المامي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا إذن مشغولني يا إذن مشغولني عروري يحولة يا باب كان إلهي حسكي يا إذن كمشغولني با إلهي كنت المامي المال ما كم بدون يبقوا حكوا إلى الصحابة استحيوا من الله حق حياء حق الحياء. إلهي كحشود حشودك وحق لي قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله وارك حشودان الله يبينا إلى رسول كسيو إلهي بانا مهضا اسكالي. قال ليس ذاك أنا وارك شيء كما هب النبي لي ولكن الاستحياء من الله حق الحياء حشودك أن تلمامي إلهي حق ولي لقى حشودا وكم النبي لي أن تحفظ الرأس وما وعاه مضح يوحو السيدو إنا دلالسو مدح محو السيدة دقو اندو عرب صن وحبو السيدة كوا إنا دلالسو حارانتك إلى السيد دكتادية إشادية أفكاقية وحاقاس إنا دلالسيد والبطن وما حواه علولي يوحي كوريكسن قلبي يوطنا يوحي لما يدبا إن هذا الالسه وحكى لولي ولتذكر الموت والبلاد وإن حصوصته جيردة يا بابا حبالنا تجلس أدونك وما الماء ير أدو كوبا ومالمو hadba maalinta joogto bad la noosho dareemadeeda qabta laakiin shalay dareemadii ha kugu soo noqon maayaan ma bayna noolaaneen wixii maalmii horeyna soo maray hadaynu wali dareensan oo wixii mashaakil iyo cadho iyo dhib iyo wareer kugu dhacay haday kaaba tagi waayaan saacad kasta xasuusanayso wad waalan lahaydba laakiin waa ilowna wixii shalaynu soo maray wuxuu doonaba ha noqdee maalinta aad joogto markaasi uun baad la warwar tahay haddaba xasuusta baa la yidhi geerida iyo baabaa dambe waman araada alaakhira taraka ziinata addunya baa la yidhi innagu waxaynu u dhimannayba waa quruxdii adduunka warninkii aakhira doonaya tan dhaldhalaalkeeda waa iska ilaabaa buu nebigu leeyahy
ninka aakhira doonaya daldalaalkeed waa iska mubaax haddaan xaaraana ku jirin laakiin maca daalik dee wixii cimriga iyo wakhtiga lagu bixin lahaa maaha sidaa ogeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya waman araada alaakhira taraka ziinata addunya faman facala dalik faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa ninka sidan yeela buu nebigu yidhi war ninkaasaa rabbi ka xishooday xishoodkuu rabbi xaqu lahaa subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba raggu waa kaa iyo ninnimada iyo dadnimada iyo insaaninimada waxay sheegaan cumar ibnu alkhataab oo rag la fadhiya maalin wuxuu ku yidhi tamanow waa bal nin walowba wax yididiilo maxaad jeclaan lahayd mid baa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan muggii oo dahaba intaan helo inaan ilaahay jidkiisa u bixiyo horta u fiirso saxaabadu say fakarayeen raggaas wakhtigaa noolaa maaha intaan helo inaan fooqaqa dhisto ee wuxuu leeyahay intaan helo inaan xaggee qabadsiiyo ilaahay dartii inaan u bixiyo cumar baa haddana ku celiyey tamanow bal ku noqda mar kalena hadda waxaa jeceshii sheega atamannaa low annahaa mamlu'atun lu'lu'an wa zubarjadan wa jawhara anfuqhu fii sabiili illaahi wa atasaddaqu bihi baa darayna wixii unbay sii badiyeen dahab qudha inaanu noqonayo birishiya sistowniskoo dhan dhagxantan qaaliga ah oo tiro badan waanu ilaahay dartii u bixinna bay leeyihin ثم قال تمنوا وأن هدنا أبو يربى كل نقطة قصة إمام الحاكم بس أرورين هي مستدرك كيس السنة كذا نوع حسن بيع علماء دوين هذا كل نقطة أبو يربى هذا مرك عليه واحد هذا انقرن بين أمير المؤمنين وحكى له أنه يدي الدين لأنه عمر يدي ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى بحذيفة وحذيفة بن اليمان فاستعين بهم على علاء كلمة الله أنا وحن رجينا يا وحن تمنينا يا أبو ليهي أنا ورق ما دمها وحن ربا أبو ليه ذهبي يدك حنيو وحن ماها وحن دون يا أبو ليه إنه وحن أنا أدينا قال الله هلا نرى شو في عنان لك ورد الرجل الله هلا بين نرى شو في عنان سن رجع دقالها سمية وحكرت شيء ضد مركات هالشو أيات هرو مرقادة دقالة كده هدو يدتكو أكو بابا مسلم كيا كان دقالة بدن يا سكدو اللي نما بدن دقالة هلين دار عركة كشرب هلين شوفانا يندار تدوني ده وقدر باندي سيا ما يتوقف بالله باندي سيا ما مقالة ده وقدر دوني باندي سيا مقالة سودا دبت تحنو قبل يدو أنت نقول مثلا لكن ساعة ونص وعركة كتان ترين بعد حردية ليش 5 دقيقة كونا إلا كونا توجا وحاسي كيف كريا قرية ودير دارتا ودير مقالة وين ديارة هو وين وحا ما هنرشة وحا هرو مريا كواليتي بني آدم كله بدله dadka mawaasiintooda iyo mafaahiimtooda iyo waxay ka fakarayaan iyo siday wax u arkayaan oo bedelma nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadu qabtay waa taa muu qabanin inuu yidhaahdo barwaaqo iyo xoolo badan baynu keenaynaa iyo nin walba qasabad caaniyo biyaaba loogu rakibayaa guriga cidina uguma rakibin rag bay ahaan maalina wax cuna maalina qada laakiin rag buu sameeyey rag سادرادد عمر مركي قلدان حول الشيخين وحيد أنو حول ومبانية وحن رجينيا إن أنا هلا أبو عبيدة بن الجراح يكون أبو كتل المامية أمين هذه الأمة أما معاذ بن جبل وأن لن يراه نبو كتل المامية أعلم المسلمين بالحلال والحرام نكوغو أقوم بعض المسلمين حلال يا حرام أما سالم مولى أبو حذيفة نكو عمر لها دون نولي هاي سقى خليفة ونقل لها مسلمين تا أما حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقاس أنا نقول رجين لها أبولي كواس وكلاينا هلو وأن إلهي درتي واديك سدا مركزية الدين تتنين كوريالا إذن أيها الأحبة رقان لماذا عمر كلا قيمة بدنيد معدن إيا جواهر إيا ذهب إيا وحل هلو إنك واحد مدوحي نورد مينك صورورين حول الله هلو نبينا وحو تلمام
إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. dadkani waxay la mid yihiin sidii geel boqola oo neef la fuulo laga dhex waayey. waa marka la qiimo beelade, waa marka rijaalkii la rabay dadka laga dhex waayo, boqol halaad oo wax laga fuulo laga waayey ayay la mid yihiin buu tilmaamaya. rajulku kuf ah. ayuha alaxiba, warwar adduun baa dadka haya. guri weyn ma haysatid, lacag badan ma haysatid, waxaan ma qaban kartid. waa nidaamu tafaaha. filosofka faransiiseed wuxuu sheegaya uu yidhi nidaamkii tafaahadu waa shay taafic, liidashada. dunida kuwa xoolo badan baa ugu taciisaysa, ugu liita maanta. kuwa ugu isdilka badan leh waa iyaga, kuwa ugu xashiishada cabka badan leh waa iyaga, kuwa noloshooda intay raalli ka ahaan waayeen qof bini aadam oo dhowr boqol oo kun oo dollar intuu isku qalay raba inuu bisad u ekaado. miyaad aragtay? oo intaasoo qalliina loo sameeyey si bisad loogu ekaysiiyo. qof bini aadama miyaad aragtay oo intuu bini aadamnimada raalli ku noqon kari waayey raba inuu ay noqdo xadhig lagu xidho la wato oo afarta adin ku socda? qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayey yidhaahda qof dumar ah layga dhigo, xoogaagan iga laalaada inta goysaan meel jeexana lay sameeyo. qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda labada naas ha layga gooyo, nin ha layga dhigo. ma aha masaakiinta dadka waxaan samaynaya inta badan, waa ciliyat alqowm. noloshaa dhadhan yeelan weyday, macna yeelan weyday. waxa istilaa tabaqaadka sare ugu badan yihiin. haddii nolosha iimaanku lumo qiimo ma leh. qiimo kuu yeeli mayso gacantaada waxa ku jira. daar baan leeyahay halkaa ka taagan, waxba samayn mayso. inaad daar leedahay inaad buul leedahay adigu uun baad isma dhaanto. laakiin muslimka dhibta haystaa waxay tahay isagiibaa wuxuu sii daba socdaa mid isba miisaanku ka lumay. indhoole hagaya ka war, mid indhala oo shaacankaa leh haddaad tidhaahdo aynu kan daba galno. yacni duul nolosha kuleh, duul kuleh maa macna alxayaa baa la garan laayay. maa macna alxayaa? noloshu maxay tahay? noolow wax iska cundhimo maxay tahay bay leeyihin. noloshu maxay tahay? noloshu marka aakhiro iyo ilaahay iyo wax ku xidhantay bay macno leedahay. laakiin garan waaye wax loo nool yahayba wax meesha loo joogo. brofesoraan nin ardayu wuxuu ku yidhi oo muslima ayaa su-aal la soo qaado, markaasu wuxuu yidhi waa nin dhareerku ka da'ayo, waana brofesor, suuraal yaroo jeena soo qurunaysta. bas wuxuu yidhi war anaa lacag aanan waxba ku falaynoo meel halkaasi ku jirtee ma ku siiyaabu ku yidhi. yacni tan aynu inagu u xiqnay isagu waa uu ka daalay, waayo wuxuu garan waayey waxay macno samaynayso. waxay macno u samaynayso aanu garanayn. ayuha alaxiba, cahdiga kan dadka majarihii baa ka habaabay. markaa darsigeygani wuxuu ku kooban yahay uun war majaru iyowida ka habaabine wixii ugu qaalisanaa baa haysataan oo diin xagga alle ka timiyo hidaayadii rabba haysataane iyada qaata oo waxay idiin sheegayso sameeya oo yaan daarahan iyo guryahan dhaadheer idiin muuqanin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.